maanta boqol iyo labaatan iyo wax ka badan dowladood ayaa iskugu yimiday halkani waxa ay muujinaysaa halka ay Soomaaliya maanta joogto waxa ay tusaysaa sida loogu hanweyn yahay waxa ay tusaysaa dawlad sharaf iyo cizi kula dunida inaad tihiin waxa aan ka faa'iideysanaynaa fursadani maanta in aan soo eegno wadankii ka faa'iideysano mujtamaca inta leege isugu yimid in aan hambalyadii shacbiga Jabuuti ee walaalihiina aan nisidno in aan hambalyayno madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo guushii uu soo hooyay sidoo kale inaan hambalyayno aanan mahad u celino madaxweynihii outgoing buu Ingiriisku madaxweynaha xilka imika wareejiyay hawsha uu soo galay iyo sida uu u diyaariyay in ay baarlaman aqal sare aqal hoose iyo magaranaysaa uu dawlad goboleed iyo hawl aad u ballaaran oo ilaahayna la qabtay si wanaagsan oo guulana u dhamaaday waxa aan hambalyo gaara aan gaarsiinayaa isagana Sheekh Shariif oo isaguna waxa hawshiisii iyo xil wareejistiisii aan ka qayb galnay oo si wanaagsan isaguna u gutay hawshiisa Sheekh weyn baa jooga halkan oo la yiraahdo Jawaari oo isaguna udub dhaxaad ka hab socodka iyo dhismaha dawladda federaalka ee Soomaaliyeed ee cusub oo dadkii iska diideen inay ruqseeyaan kolka uu yani hawsha uu qabtay iyo ta soo socota uu doonayo inuu qabto iyo culayska la sii saarayo waxa muuqata inuu yahay nin hawlkar ah wali waad shaqaynaysaa inkastoo timuhu ku cadaadeen nothing awama gudoomiyaha cusub ee sanadkana waan hambalyeynaa isagana inkastoo wali isgaranaynin walaalayaal waxa aan sidna waxa weeyaan kalgacal iyo walaalnimo waxa aan sidnaa inaan nidhaahno agtiina ayaan joognaa sidii awalba aan u joogaynay baan u joognaa madaxweynaha cusubna si gaar ayaan doonaynaa inaan ugu muujino kalgacal iyo wada shaqayn iyo wixii anagu aan ku dhaanno inaan la garab taaganahay muruq iyo maal intaba waxa aan jecelnahay Soomaaliya oo iyadu nafteeda heshiis la waxaan jecelnahay Soomaaliya oo hawsheedii regionka ama gobolka sidii ay u gudan jirtay u gudata waxaan jecelnahay iyada oo walaal la caalamka islaamka iyo carabta iyo guud ahaan regionkeena waxa aan jecelnahay cizigeygii iyo sharafteedii in magaranaysaa ay yeelato madaxweynaha cusub waxa aan leenahay dadweynaha Soomaaliyeed maanta wuxuu kugu soo dhaweeyay si gaar ayuu kugu soo dhaweeyay waxbaa nooga muuqda waxaas yani kalgacalka iyo soo dhaweynta gaarka ee magaalo walba dalka gudihiisa iyo dabaddaba aan ka maqlayno
waxa ay ku farayaan baa jira adiguna message-ka inaad fahamtay baan iyaan rajaynaynaa hawsha ay ku dirayaanna in aad ilaahay la kaashato in aad sidii lagugu yaqaanay aad niyad sami iyo tawaaduc intaba aad muujiso in aad tusto kalsoonida ay ku siiyeen inaad u qalanto waxaan jecelnahay inaan dadweynahana ku nidhaahno walaalahayow hawshan ninkan hortaallaahay tu yar maaha tu sahlan maaha habka halka aad gaadhsiinaysiin hankana dee waa inaad ku garab gashaan si ay u suurowdo inaad ku garab gashaan inaad tustaan inaad kelidii uunan waxba qaban karin kelidii inuunan waxba qaban karin inaad tustaan asaguna waxa uu ku dhiiranayaa haddii uu arko hareerihiisa inaad joogtaan fi saraa'i waddaraa haddii ay kharibanto iyo haddii ay hagaagtaba inaad garab joogtaan inuu arko dareemo idinka arko ma garanaysaa raqbad iyo rabitaan maanta Soomaaliya waxa hor yaallay wax yar ma aha noloshii baaba kolkol halis ah noloshii malaayiin dad ayaa halis waan ka wada hadalnay madaxda gobolka in aan qayladhaan u kacno gebigeennuba inaan dadkeenna badbaadino gebigeennuba in aan tusno in ma garanaysaa horta annagu aan guntiga guusha iskaga dhigno oo aan soo saarno yacni inaan dadkeenna u gurmano carruurtu ha ugu daraatee wararka la sheegayaay ma fiicno yacni halis baa ayaa halkaa jirta halistii kale ee security-ga ayaa ku haysata dhaqaale xumadii baa ku haysata waxaasoo dhan waxaa lagaga baxayaa bicawni illaahi wa tawfiiqih ragannimo ku dar haddana annaguna wixii aan tarno wixii aan karno hagar la'aan inaan idin garab joognana inaad ogaatiin baan doonaynaa Soomaaliya ha noolaato ha weynaato ha korto ha adkaato ha ciziya sharafteeda ha soo ceshato